قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وراليان سيدا ولالكم لو شيء waxaan u fadhinaa mawduuca la wada yaqaano meelo badan laga dhageystay dad badan oo diinta faafiya laga dhageystay diinta lagama daaloobaysa xusuusiyo ama in la maqlo marka tacaalo mu'minu saaca كان ساعد إلهي الرحمن جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلهي القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله مقعي إيمان بالإنه يرى إلهي إيمان بالنقري جل وعلا هذا واحد يقول آمنوا بالله ورسوله مؤمنين باتين وإلهي وأمر مسان هذا إلهي هم يبالي على إيمانكم إنه وحمل كريم لهانتيو وفرها لو دغو دي تخصنا دولدو لو كان لو قفلو لو هايو لو وديو إيمانكم إنه إلهي نشري جل وعلا إيمانكم يا واحد دوغو لبعد اسمه غير كرتو وباهن لضيع ترو لو هايو ليلاليو أي إلهي ندرسين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله dadka ilaahay iyo rasuulka rumeeyo mar labaad ilaahay rumeeyo oo mar saddexaad rumeeyo mar afaraad rumeeyo iimaankooda hayaa inay tahay dadaal joogtaa hawlaan dhammaanayn inuu ilaahay intay noogu sheegay jalla wacalaa walaaliyaan iimaankaasi waa halbowlaha nolosheeda haddii aan weyno iimaanka ilaahay inoogu deeqay jalla wacalaa ilaahay aan rumeynay intii ilaahay ina faray la rumeeyo rumeynay haddaan quluubteena intoo ka dhaadhicino aan ku adkeyn weyno aan ka warahayn weyno nolosheena istaagaysaa waxaan ku socono ee aan ku noolahay subaxaan kusoo toosayno tamar iyo xiiso cusub aan nolosha ugu haynaay waa iimaanka ididiiladeenu waa iimaanka xiisaha inaad guursano inaad ubad yeelato inaad shaqaysato inaad dhoofto inaad mashruuc samayso nolosha waxaa xiisaha kuu geliyaa noloshiiyo mashaariicdeeda aad uga xiisa dhici weydaayey waa iimaanka waa siru xayaatina waa ruuxu xayaatina waa noloshayna ruuxdii dhaqaajinaysay waa noloshayna sirtii dhaqaajinaysay iimaanka haddii aan weyno abaawi naga bardhumo xayaatideenu socon mayso markastoona hoosu dhacnaysana soo qaaday markastoo tiiraaniyoono isagaa tiiraanyadii naga beynay markastoo turooturoono ama aan kufno iimaankayna kicinay iimaankaa marka in laga warayo la ilaaliyo waxa weeyaan waxay noqonaysaa daruuri bay noqonaysaa iimaanka wax ku nahay iimaanka haddaan weyno waxba la-aan baa noqonaynaa qul yaa ahla alkitaabi ilaahay wuxuu yidhi lastum calaa shay xataa tuqiimu tawraata walinjiil wamaa unzila ilaykum min rabbikum qul yaa ahla alkitaabi lastum calaa shay buu ilaahay ahlulkitaabka waxaad ku tiraa nebi allow waxaad tihi waxba la-aan eber baa tihi sifir xataa tuqiimu tawraata walinjiila wamaa unzila ilaykum min rabbikum ilaa tawraa iyo injiil iyo kitaabkii ilaahay laydinka soo dejiyay inaad ku dhaqantaan oo qaadataan waxaad ku tiraahdaa nebi allow waxaad tihi waxba la-aan markaa iimaan la-aan waxaan nahay waxba la-aan iimaanka wax ku noo qiimo ku leenahay markaanaan ka warayno gaarkaayno waa daruuri waxaan ka hadlaynaa baan idhi tacaalow nu'minu saaca kaalayo ilaahay saacada rumeynaya asxaabtii nabiga sala allahu calayh wasalam oo cumar ibnu khataab uu ugu horreeyay hadalkaa loo tiiriyaa cumar tacaalow nasdaadu iimaanan baa cumar laga wariyay radia allahu canhu tacaalow nasdaadu iimaanan kaalaya
إيمانا بيرسلوا إيمان كنا كبعينه عمر حلولي هلموا نزداد إيمانا رضي الله عنه وارضاه إن كان إيمانا بيرسلوا عن رسول عمر لقولي رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة وسحابيه ولا سنة ولا نقانو إذا قلت سبحا لقولي يوحولين سوف ريسية واركانيا نؤمن ساعة إلى ساعة رمينو إلى يوم رميني رمينتي أن جديدين وحي وبانتي إلى جديدي وقال لا يوبانتي وحمر خليا الهرماء إيمانك حيسيس وأساسكم معاني إلا قد ودعوا لك شغيكم معاني هديوا هذا شهادة مرونها عبركم هاي لكن قيميس وحوية وكوراهيتا يدمجو كده لدمجو امتحان كنا الكاسو جرا هدو شهادة هاي مركزية لها ولا بدهرها لكن امتحان كي اختبار كنا كجرا وإلا دمتها من هذا ولا غيره مركز صحابي وحلقوا يسوع فريستا إلهي سعادة حسنه أصحاب تقارب الأولي والرياض وسعاد الله يرمينه تعالوا فلنذكر الله ونزداد إيمانا بداعة الله جل وعلا قال يوم إيمان برسله داعد إلهي إيمانكم برسله وحكى ورمينا وحبا بها موضوع إيمان كان رمي مرة واحد مقاشين الذين كوع عليو لكن ستواصل مع ربنا نقرأ إلى دور شيء شيء وحيابها الإنسان إنه إيمان كذلك كبعينه ما شاء دونه يرب جبت له وديك وذب هدي أقوله إيمان كاسو يرب من رحم بارا مقالة لست هدو إيمان وكل قادي وهي كده بالمش لندن يعليس كي مشاكل شده هدو إيمان وكل سيدي وهي كده بالمش وحنو بعنا إيمان رحم بارا عبء هذه الحياة لا نخدع قصد فيه عبء هذه الحياة ورسل العليس وحنو بعنا وحين نسينا بعنا إلهي ما قرآن كيسا كل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إلهي تاغير صلاة عسكر إلهي تاغير صلاة يعد إلهي جل وعلا وحيابها إيمانك لكم عيو صبر إيو صلاة marka ayadoo mashaakisha adduunka aan la sidi karin ayaa haddana waxaan joognaa meel mashaakishii la laba jibaaray oo la shan jibaaray oo la boqol jibaaray baan joognaa marka wax kaa fududeeyo kula sida haddii aad weydo waa mushkilo marka dhowr shay iimaankeena waxoogaa aan ku cusbayno aan ku adkayna baan tilmaamaya marka koowaad waan wada garanaynaa alkhushuucu fi salaa salaada ilaahay u tukanayna haddaba maqribkaan tukanay salaada inaan ku khushuucno sirtii salaada inaan raadino waxaan wixii ay salaad ku noqon lahayd inaan raadino dee magaciiba salaad ka tahi laakiin magacan wax ka badan baa jiro salaada ku noqonayso magacii waa salaad haddana magacan wax ka badan oo dhaafsan baa jiro salaadii ay salaad ku noqonayso waxaa inaan raadino siru asalaa salaada ilaahay wixii uu dhexgeliyey inaan raadino وضروري ولا مرمان أصحابتي النبي أي جد كامري صلاة الحكرادية فرق بدل أصحابتي النبي كبيرة صلاة وحي كهل قلبي يقول جلعة كهل إنتو قلبي يقول جلعة أيوة تكري وحي كهل إنني الميان والأويان أي صلاة إلهي تكري إلى كهل جل وعلا وحل ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو صلاة فجري ضد مسلمين تكليا أي عمر واحد يقول حديث كاس سورة المامية سورة يوسف مسلمين تكتجيه وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون عمر آيات كاس أخرى رضي الله عنه كور رميا نبي الله يعقوب ويسكعر علي وجرن حمصلي إليه تعبادان نبالي أمر ويملكي يوسف نواي نبي الله يعقوب عليه السلام يملكي سعود ويل بكرمهن marka iska tiilayo iyo sicil kaabiya
وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف ولشي سبك جيستي مركز على نبتع عن لقبه يوسف نواي وتولى عنهم وقال يا أسفا وابيضت عيناه من الحزن فهو كذب لقد انربع عذابه ببالي اسمه عيل عن هذه كريمي قالوا تالله تفتر تذكر يوسف وحينا والله ما قلنا من كدم عن ميسد إلى يوسف إلى هذا رئيسه وحينا من كدم عن ميسد حتى تكون حرضا إلى تكبر وذلك حمسته أو تكون من الهالكين أما تكدمته هذا الكوكب لبيسته أما تكدمته هذا الكوكب لبيسته وحولي إني أشكو بثي وحزني إلى الله عمشبيا تينا يدي على عقيقة إلهي ما مشغرية وأعلم من الله ما لا تعلمون إلهي ما وحكوه هاي وحالدين كوكوين ونبي إلهي ودعنا ونمدي سواي واسكعنا عليه تينا يوم عمر أخي رضي الله عنه عمر الله وقلبه يسوفر مسلميتي سوى تجينيه أيها وحاس كل عي قرآن كان معان ومهدك إلهي نبي إلهي على علي ويركو بتكيسي كمقيين عمر waxaa soo dhan baa isqabsado markaasuu cumar ilmu hinfaaray raggii ka dambeeyey waxay yidhahdeen salaada tujinay waxaan maqlaynay hinfaarka cumar radiyallahu canhu cumar oo hinfaaray ayaan maqlaynay waxay isku dayeen salaada ilaahay waxa uu ku darsaday inay helaan bay isku dayeen ilaahay waxa ku darsaday salaado sir buu ilaahay salaadiisii ku biiriyey sirta ilaahay salaadiisii ku biiriyey raadiyay qofba si buu helay عمر وكالي وهنت رضي الله عنه ولا ليالي صلاة وحنقين نقول صح لكن سؤال بايما ليسوه وهنت نفتي يسدوي مكتا وعلينا تلمامي نبي الله ولا سلام إلا تلمامي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحوم صلاة كيشو وحن نقول وضلا مر أو تاك أو كتاك مر أو تاك مر نبي الله إلى تمام صلى الله عليه وسلم حديث إمام الباني وتصحيحه نبي محمد صلى الله عليه وسلم اذكر الله في الصلاة فإن الرجل إذا ذكر الله في صلاته لحري أن يحسن صلاته وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها صلى الله عليه وسلم حديث إمام الباني ayaa sheegay yaa tasxiixiyay xadiisku saxiix bulay النبي نسينا حافز يعني استمراريس wax kugu riixa waxaad sameynayso waxa kugu riixa inaad sameyso ku jeclaysiin inaad sameyso ku xambaaray inaad sameyso ay nabigu nasiina wala tilmaamaya salaada inaad khushuuc ka hesho ama quraankeeda akhriisa ama camalkeeda qabanaysiba wax kugu xambaaray inaad wax ka hesho ku khushuucin nabigu inoo sheegay alayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu yiri geerida xus adigoo salaada ku jiro xusuuso adigoo quraanka la akhriyo ama sujuudi ku jira ama rukuucdi ku jira geerida xusuuso اذكر الله اذكر الموت في صلاتي geerida xusuuso salaada ku jira soo xaadiri adigoo dhintay oo kafanka lagu keliyay oo keligaaya oo qabriga lagu su'aasha lagu weydiinayo oo ka tagay haweeneydii ficneedii ubadkaagii iyo qaraabadii iyo jiiraankii iyo muslimiinta oo ka go'ay keligaaya xusuusada salaada ku jira marka nabigu alayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ilaahay xuso hadduu geerida xuso isagoo salaada ku jira wuxuu u dhow yahay salaadiisa inuu tusiyo nabigu alayhi salaatu wasalaam la hariyun an yuhsina salatahu inna ar-rajula idha dhakara al-maut fi salatihi la hariyun an yuhsina salatahu qofku wuxuu u dhow yahay hadduu sidaa yeelo inuu salaadiisa wanaajiyo tusiyo nabigu raggeedu qofku wuxuu doonayaa marka abu rasuulullah sallallahu alayhi wasallam وصلي صلاة رجل قف صلاتي تكو رجل وحده ينظر قف صلاتي تكو أنا ليلين صلاة تكلمت خدم بيسين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الله أكبر تعالى تأتي وتبيسين تكتو وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها تعالى تكلم غير كذا وحنا العين وفأنا تكلم سيدي وكلام سكبت النبي عليه الصلاة والسلام السؤال شو حكى جوابنا وان قرني صلاة وهبن نقول كل ولا نقول محايا نبي قلنا تمامي عليه الصلاة والسلام
ama camalkaad qabanaysa dhexdiisa ama ka horba waxalle wixii kugu xambaaraya kugu riixaya inaad inuun aada salaadaada wixii la halmala wax ka hesho nebigu wuxuu leeyahay yeel sala allahu calayhi wasalam sida maxay oo kale niyaddii salaad oo kale xataa haddaad qur-aanka garoweydo qur-aan baanad garanay farsamada kale xataa haddaanad garanay inaad niyooto salaaddii baad tukanaysaa niyadda ku qabatood qalbigaaga ku weynaysa niyadda salaaddii baad tukanaysaa niyadda keligooda weynayso khushuucdii bay kugu xambaari bay masaajidkood kama timaadaba 10 minit ka hor rubuc ka hor 20 minit ka hor nuse saaco ka hor ood qur-aanka akrido naftaada cabisa nuse saaco qur-aan hadhow salaada marka loo kaco adigoo ku jira daa'iradii adigoo garoonkii cibaadada ku jira ayay salaaday kusoo geli dhammaanteen waxaan garanaynaa qofka ciyaartooyga ama kubad ciyaara ama ordaya ama cayaar kala cayaara cayaarta inta la bilaabay wuu iskuuleeya nuse saaca la iskuuleeya ama wuxuu dhow cayaartii dhabteed markay timaado qofkii u diyaar garoobay ciyaartii buu galayaa bal taasoo kale masaajidka keen waa iska sidaa adigoo gurigaadii ka yimid oo maqiiqan oo ubadkii iyo weligaadii wanaagsaneed iyo wixii rabshad ku jira haddaad soo gasho wixii baad kala wadi ilaa intaad salaada dhamaysanayso laakiin salaadaa nuse saaco ka hor timaada masaajidka eed ilaahay xustada qur-aankaaga iska akrisato salaadii marka loo kaco jawigii aad nuse saaco ku jirtay baad halkii kasii wadaysaa wuxuu ahaa jawi baarid oo iska macaan oo qabow oo qalbigaaga iyo xasiloon oo degowaya marka waa maxay waa xaafiis waxyaabaha noocaas waxay kugu xambaarayaan salaada inaad ka hesho ilaahay wixii uu ku darsaday sirtii ilaahay u xambaarsiiye inaad ka hesho ayay kugu xambaarayaan waxaad xusuusanaysaa fadliga salaada is-xusuusi salaadana tukanaysi fadli beeleeda ilaahagtiisa ajar baa laga helaa ilaahay waxa loogu dhawaado faralka ugu khayr badan salaad marka laga hadlo ilaahay waxa loogu dhawaado salaadaha faraa'idda ugu khayr badan sunnihii baa lagu tirinayaa faradkii wixii kaa qabiyaa baa lagugu kabayaa ajriga ku jira nebi maxamed uu ka sheegay sala allahu calay wasalam xusuuso waxaa kugu soo dhacaysa markaa toosi salaad kastaba sideeda u qiimee salaad kastaba sideeda iskula xisaabtan sida arijiruhu arigiisa oo u tiriyo ula joogo salaad kasta u daba joog salaad kasta inaad wax ka doonto macaash ka doonto inaad wax ka macaashto macaashka ilaahay uu sheegay jalla wacala waa daruuri oo waxyaabaha inagu xambaaraya inaan salaada ku khushuucno walaalayaal shayga labaad ee iimaankeena aan ku kordhin karno ku biirin karno waa ta'amulu siirati nabiyi sala allahu calayhi wasalam siirati nabiyillaahi sala allahu calayhi wasalam inaan aada ugu fiirfiirsano noloshii nabigeeni udgoonaa sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ficnaa noloshiisii inaan akrino maalihii nebigu soo maray ama meesha ay ka dhib badnayd inaan akrino nafteena ku kabcayso waxweyn baan noqonayna waan kobcaynaa waan koraynaa waa lagu koraa cid adiga kaa fiican oo kuu tusaalaha markaad akrisato aad arday u noqoto adigana naftaada way kobci weynaayi laakiin adiga cid kaa liidata markaad macallin ka dhagato adiguna ciddaasaad kasii liiday markaa siirii nebi maxamed inaan akrino sala allahu calay wasalam waa daruuri waa lagama maarmaan nebiga ilaahay wanaagsan oo noloshiisii wax badan huray naf iyo maal iyo wax kasuu nebigu huray waqti wuxuu u huray diinta ilaahay inuu baahiyo sala allahu calay wasalam hadday cidi wax bixisay hadday cid dhibaata soo gaadhay hadday cidi fikirtay maa shayabaka yaa rasuulallah qaala shayabatnii huudu wa akhawaatuha sala allahu calayh wasalam nabi allow maxaa ku exradan xaggee kaaga timid suuratu huud iyo suuradaha dhigeega ayaa timahayga cadeeyey rasuulku leeyay sala allahu calayhi wasalam maa shayabaka yaa rasuulallah nebiga ilaahay xambaarsanaa humuumta ummadii aabbaha uu ka ahaa sala allahu calayh wasalam ummad isaga raacday bilaa guriya bilaa biyaa bilaa biila bilaa masruufa maka ka qaxday madiine ka qaxday isagoo aabbow yahay u horkacayo wax laga sugayo oo qorshe laga sugayo istaraatiijiyad laga sugayo tilmaamna abaadulo dhabuu ahaa nebigoogiibu waa sala allahu calayh wasalam humuumtoodu siday inaan akrino siiraha nebiga wanaagsan sala allahu calayh wasalam inaan akrino siiraha nolosha asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa ragga qaar waxay ku tilmaameen waxay yidhaahdeen khalat anfusuhum min xaddi anfusihim markay tilmaamayaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtii nebiga siirooda markay tilmaamayaan waxay yidhahdaan khalat anfusuhum min xaddi anfusihim kutubta siiraha markaad akrido
khalat anfusuhum min xaddi anfusihim, naftoodu waxay ka faaruqday naftoodu nasiibkii ay ku lahayd. naftoodii baa ka weyday naftoodu waxay ku lahayd, xuquuqdoodii ayagu ma hayaan, halkan bay xuquuqdii naftoodu ay ku lahayd iska dhigeen. waxay had iyo habeen u socdeen maxay? islaamka inay baahiyaan oo ilaahay waajibkii uu saaray inay iska qaadaan ayay walaalayaal kow ka dhigeen. khalat anfusuhum min xaddi anfusihim. qofku inuu tadxiyo, qofku inuu sameeyo naftiisa horo ama maalkiisa horo, maanta waa waxa la iska laayay. waxay ahayd dhaqanu nabigu udgoonaa lahaa sala allahu calayhi wasalam. inaan u fiirsano waa daruuri. abilxasan nadawi shaykhii hindiga raxmatullaahi calayhi, mufakirkii weynaa addaaciya raxmatullaahi calayhi, wuxuu yihi min mazaaya alambiyaa waadducaa التجرد بالدعاء والتفرق لها بالقلب والقالب والنفس والنفيس والوقت والقوة رحمة الله عليه. وحصور يا قفك داعية، قفك ذلك الدين توقيع مرتبط درجة الجروب أيوة المامية. وحوي من مزايا الأنبياء والدعاء التجرد للدعوة والتفرق لها. نبي إلهي dadka ducaada, dadka diinta ugu yeedha waxaa lagu yaqaanaa inay u banbaxaan dacwadda, inay u banbaxaan iyada inay u faaruqaan, iyada inay u bixiyaan bilqalbi waalqaalibi, iyada inay u bixiyaan jidh iyo nafba, ruux bayna iyaga u bixiyaan, inay walnafsi walnafiis, naf iyo adduun bayna iyaga u bixiyaan, walwaqti walquwa, waqti iyo awood bayna iyada u bixiyaan. inaan akrino nabiga ilaahay iyo asxaabtiisiiyo noloshooda u horay diinta maanta hayno. wanaga ku raacsana caawa waxaan leenahay lastan waxaa caawa ila sida waa iimaankayga, wallahi waa sidaa, midkeena kama dabaalna, waa wada waalanahay. haddaan bila iimaan lahay waan ka wada shubi lahay gidigeen, waan iswada daldeli lahay haddaan bila iimaan lahay. waxa naftaada kaa celiniya kuwa kaa hor jooga waa iimaanka. gebigeena waan waalanahay, maryahaan dhigi lahay, waxaan ku seexanaynaa, wax ku cunaynaa, ku fayownahaana maryaha u sidanahay, waa diinta ilaahay jalla wacala, waa iimaankaan haysana weyaan, waa badbaado. taasi inayna soo gaadha buu nabiga ilaahay wanaagsan ka shaqeeyay sala allahu calay wasalam, asxaabta nabiga ilaahayna ka shaqeeya sala allahu calay wasalam. wallahi waa nicmad weyn. halkaa inagoo joognaa caawa sidaas ku dhagaysan masaajidka ilaahay fadhino waa wax weyn. qofkii ilaahay u dareensiinayo baa dareemaya waxaa naftaada kaa haya, ee bulshada kaa haya, inaad wax dhacda kaa haya, inaad wax disha kaa haya, ilmahaaga kaa haya. adduunka farxumo waxa ka dhacaya waa yaabeen. adduunka farxumo waxa ka dhacay waxay nagoo joogay waa iimaanka wey, waa iimaanka. marka inaan xusuusano dadkii iimaanka ayna soo gaarsiiyey jidkii ay soo mareen iyo dhibaato waxay la soo mutaysteen, inaan akrinoon xusuusano dib ugu noqonaay waa daruuri walaalahay, waa lagama maarmaan. qodobka saddexaad oon iimaankeena ku kobcinayna amaan ku korinayno waa altafakuru wa alta'amulu fi makhluuqaati illaahi maca dikri illaahi caza wajal. abuurka ilaahay inaan ka fikirno oon u fiirfiirsano, inagoo ku biirinayna u fiirfiirsiga ilaahay xuskiisa iyo hadalhayntiisa. waxaa la yidhi acdamu addalaa'il calaa cadamati illaahi wa camaliyat alkhalq. acdamu addalaa'il calaa cadamati illah wa camaliyat alkhalq. waxyaabaha ugu weynee ilaahay weynidiisa laga baran karaa sheegi karaa waxaa ugu weyn inuu ilaahay wax abuuray. ilaahay uu weyne laba cali iskuma haysato, waa sax, laakiin waxyaabaha inoo sheegay ilaahay inuu weyne waxaa kamid a camaliyat alkhalq. waxaa ugu weyn inuu ilaahay wax abuuray. ayaa wax abuuri karoo kale? laa, ilaahay keligii baa wax abuuri karaa. ilaahay inuu keligii wax abuuri karo jalla wacala ayuu ilaah ku yihi. weynida ilaahay ma sheegaysaa yaa ayuha annaasu duriba mathalun fastamicuu lah ina aladiina tadcuuna min duuni illahi lan yakhluquu dubaaban walaw ijtamacuu laha bu ilaahay jalla wacala. gaaladii baa la cajzi gelinaya. war waxaa layidhi ilaahay uu idin maamao tusaala ayaa laydin sheegay. waa maxay? ilaahay ka soko waxaad baryaysaan waxaa layidhi duqsi ma abuuraan duqsi xataa hadday isku jiraan.
duqsii waa ilaahay wuxuu abuuray wixii ugu intaadiraa wey hadday giddigood isku tagaan oo isku geeyaan maal iyo caqli iyo cilmi iyo waqti iyo karti ay isgaashaamuraystaan waxaa la yidhi duqsi ma abuuri karaa taxaddi baa lagu sameeyey taxaddi waa soo ilaahya kalama sheeganin dee ilaahyada duqsiha abuuraan ba layidhi aniga ilaahay wuxuu yihi aniga halaane waxbaan abuuro kownkaan abuuray soo waxa kala ilaahiya kama dhiganin duqsiha sameeyaan baa layidhi marka waa taxaddi baa lagu sameeyey taxaddi baa lagu sameeyo waxaa la yidhi waa wax keena marka ilaahay calamadiisa waxaa loo dariishtadaa ugu weyn waa abuurkiisa abuurka ilaahay loo fiirsado noocuu doona baa noqdo marka loo fiirsadana hadalhayn ilaahay lagu biiriyo ama ilaahay loo mahadnaqo ama ilaahay foolxumiyo ceeb laga reebo hadalhayn lagu biiriyo qur-aankaan ka fahmayna ilaahay jalla wacala في آخر سورة آل عمران آيات كان وذكرنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وهذا وذكر ربنا ما خلقت هذا باطلا إن يضرب أنفس أبوك إلهي مع ذلك هذا الكبير الله حسكي سي هذا الكبير ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وحيستحوذان والله عمليه وعملية التفكر هي عملية الذكر وحيستحوذان عنده هي عقلك هي قلبك انت بوضع شغيليا عنده من كونك كوابيا عنده بعقلك درينك عقلك بوحفامي عقلي قلبك يقول الله انتم كفرين سبحانك ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب الله سبحانك ما خلقت معناها التفكر كي وإنه رادي يشو وإنه رادي يشو رادي محوية سبحانك إله عيب لا بدل إذا إله بلا عيب باطل أدقوا هذا الأبورتي أنا هذا الأبورتي الماء هذا الأبورتي أريد أن أقرح بدل هذا الأبورتي عري يدل إله وحى كلمة هذا الأبورتي سبحانك وحى عيب الآن والنتيجة دي والنتيجة دي قارين تفكر كي مربو كو يسكبو بيا شمال كو يسكبو بيا شمال سبحانك فقنا عذاب النار إله وحتى عمران دليل يد القاف أنا محبد مريهين إله ورد بالله واحد سكوب بيننا يساعد وشدي هي عقلي هي قراتكي هي إله بس النبي محمد صلى الله عليه وسلم آيات ككني حديث علماء فرق بين الأيوريان أيها النبي عليه الصلاة والسلام وحاولت بي سحابي لرجل عطاء يا عبد الله بن عمر يا عبيد بن عمير صدح ذا صحابي أي عائشة بغض يقول لي عائشة عطاء عبد الله بن عمر يا عبيد بن عمير أي عائشة بغض وما كاس يقول أنا عائشة يسكورا عائشة ويعانتي وحوغا وحي كنت لي عبيد كنت لي عبيد ننكي قبل كوياك وعيري زر غبا تزدد حبا حد وعيدا نوي مويد وانا قرأتي حوغا على الإنجليز زر غبا تزدد حبا عايشة كنت محاد نوي مويد عمر مركز عمر يري نكا قبياك حسوستي بيتها قبياك يريو بيتك أسان حسوستي وزر غبا تزدد حبا معناه زر غبا ما لندافع حزيانو تزدد حبا كان عالي وجعل بخبيري زيادة دي نقول لي استويت وتبغى قاعد شرعي زيادة كان داير ما لنا في زور غبا تزدد حبا ما لنا في زيادة جعل بعض برسالة عايشاي نكا قبيلة بيت كاوتيليان حسوستو وعن كاميرا بي زيادة كودا دايرين ساسوكوي مركب كل هذا النبي الله صلى الله عليه وسلم عماشي وقبل يقول يسبب جوي نبي الله عائشة وحدة النبي إلهي وناسنا عليه الصلاة والسلام يأتي من وراء عمل كيسوة ويعجيبها مركمان بوسع قبطي همين بوسع قبطي همين الذي وناسنا همين الذي نبي كبدها صلى الله عليه وسلم عائشة وحدة النبي ونجيب صديق مركان بن عيد بن عيسى تابتو النبي يقول كعب ورا صلاة وكعب مركان تابتو وحدة النبي ما تابتي مركاسو دونين وكعب عائشة رضي الله عنه مركاسو يقول بيتي يا عائشة ذنبي أتعبد لربي عائشة يداب النبي إلهي العابد الحمد لله يداب كعب إلهي العابد
مركز عائشة تري نبي إلهي أحب قربك وهواك إني أحب قربك وإني لا أحب هواك نبي الله هذا الجف ترى واجع علي عبادة سبيل سنة واجع علي إلى الجف وكلام عن عكاس عائشة مركز واحد النبي ويقدري عليه الصلاة والسلام وكعي قرب بكوي سيستم حوالي النبي يقول لا بيا وشو عائشة غير بيه النبي يقول عليه الصلاة والسلام بيه سوى دوري وسيستم وهبين نبي وتك عليه الصلاة والسلام وتك النبي عليه الصلاة والسلام وأبنك إسكبدو وأبنك إلهي ولكن إلهي قلبك سفرين قرآنك قلبك سباسكر عين نبي وأبنك أبو عليه الصلاة والسلام سيد حديث كاسم شيء المدينة أبنك سبويسي هذا كنت يسي يبويسي بالقويسي هذا ما يشوفك سجوده النبي أبو عليه الصلاة والسلام صلاة دي بكرة عمر كسرنا عود بسنا سوى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن تأسي وأوهن وبكاء الخوف والسعادة وأوهن عبسي الله وأوهن وراحيسي رسولك الله وراحيسي صلى الله عليه وسلم تم لنا نقول يا ما دينكي ونبتي وشرعي ومحي وعيدي تم لنا نقول يا ما وراحيسي صلوات الله وسلامه عليه تصير عملت نقول ما هو بكاء الخوف والسعادة صلوات الله وسلامه عليه بلال با يوي النبي إلهي من عوجف ومكاسب بلال كل ما يبكيك يا رسول الله رسولك إلهي ومحاك أوهي مركز النبي ولماذا لا أبكي وقد أنزل الله علي هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار مركب النبي فويل لمن قراها ولم يتفكر فيها صلى الله عليه وسلم نبي وحده قفكه وحه هي قفك آيات كآخرة إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره وحكونا آيات كان وحي الشاقيان أقولك إلهي وفرسو أدبا كبيري هذا الهين إلهي وفرسو سنة وحكا دشان إيمانك دشو درينك وهاتو صدد لماذا وهكعو نبي محمد بصير أصوي نوكو إلى آياتك صلى الله عليه وسلم وضروري وانا ومارمان أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين عبد الله بن عباس وعيد ركعتان مقتصرتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن عباس آيات راعية وعيد ركعتان مقتصرتان في تفكر لما ركعتان مقتصرتان نحن حالة لما ركعتان نحن حالة ونحن يارين لكن في تفكر لابد كذا فكر عقلي قلبي يوجوه هل كان يسي أمنه هل كان يهمك هذه يوجوه إذا صلاة معي أبو معي وهل كان يهمك وين قلبي عقلي أنا هل كان يهمك وين بلاك يتمدى معه صلاة سيداوي وهل كان يهمك عقلي قلبي ركعتان مقتصدتان في تفكر لما ركعتان نحن حالة oo lagu tukaday aqli soo jeediya qalbi jooga ayuu yiri ibn Abbas khayrun min qiyam layla wal qalbu saah ayaa ka khayr badan habeenadu tukada oo qalbigaagu maqay habeenadu tukada qalbigaagu maqay caawna ma tukatay wad garacna laba afar lix sidee labiyo toban caawna ma tukanaysa laba ragcadood oo gaagaaban laakiin qalbigaagu joogo أياك خير بدون عبد الله بن عمر رضي الله عنه حسن البصري رضي الله عنه أيا سيدنا هذا الكون الأولي تفكر ساعة خير من قيام ليلة تفكر ساعة خير من قيام ليلة ساعة فكرتو الله بارك أسكف فديتو فكرتو أقول كذا فكرتو أيا وكوفي عنبا أديو صلاة الليل تقول مركب الحجة صلاة خشوع لها هذا كي وراء ابن عمر بس ابن عباس بس عليه
salaada khushuuc lahayn adoo tukadaa waxaa ka fiican adigu intoo balladankaas ka fadhiistaa ilaahay abuurkiisa ka fikiro deeto wax ka dhaxlo ka hantiya ayaa ka fiican. asxaabta nebiga qaarkood ayaa waxaa laga wariyey maa taalat fikratu mri'in ilaa fahim wamaa fahima mru'un ilaa calim wamaa calima mru'un ilaa camil. bacdu saxaaba yani waa hadalada laga warinayo waxay yidhahdeen maa taalat fikratu mri'in ilaa fahim. qof fikradiisu ma dheeraato, qof fikradiisu aada uma dheeraato, si wanaagsan oo qoto dheer qof uma fikiro. hadduu fikiro wax u fahmaa. fikir murakasa, tafkiir murakas, ya caqligaaga aada u baandhaysood u rogrogto ood soo ururisay oo dibaddii ka keentay caqligaaga, waad soo ururisay halkan baad keentay caqligaaga. waa tafkiir qoto dheer. wuxuu yidhi ilaa fahim, qofka sidaa yeeli wax buu fahmaya. wamaa fahima mru'un ilaa calim, qofka wax fahmayna dee fahamkaasi wuxuu ku geenayaa ugu dambayn inaad wax garato cilmi. wamaa calima mru'un ilaa camil. qofkuna hadduu cilmi yeesho inta badan cilmigiisaasi wuxuu keenaa dhaqan. oo jiraan dad wax yaqaano ku dhamin, laakiin cilmigaasi inta badan wuxuu keenaa dhaqan. tafkiir xeel dheer wuxuu keenaa faham, faham xeel dheer wuxuu keenaa cilmi, cilmi xeel dheer wuxuu keenaa camal. marka maxaan haynay altafakuru wata'amul, waxaan haynay inaan fikiro oo ta'amulaan samaynaan haynay. maxaan ku dhahday cumar ibn cabdilcaziiz radi allahu canhu hadal fiican baa isaga laga wariy alkalaamu bidikri illahi jala wacala xasan walfikratu fi nicam illahi afdalu alcibaada. cumar ibn cabdilcaziiz raxmat ullahi calayhi wuxuu yidhi alkalaamu bidikri illahi jala wacala xasan, hadaloo ilaahay lagu xusaayo wax wanaagsan. walfikratu fi nicam illahi afdalu alcibaada, ilaahay nicmooyinkiisoo laga fikirana wuxuu yihi cumar ibn cabdilcaziiz waa cibaadata ugu fadli badan oo ugu wanaagsan. afar walaalayaal waxyaabaha iimaankeena aan ku xoojinayno aan ku cusanaynayno macrifatullah, ilaahay inaan garanno. markastoo qofku ilaahay u garto ilaahay kuu dhawaadaa oo ku dulkaa jala wacala. macrifadu waxay kugu geysaa ilaahay bay kugu geysaa, ilaahay bay kugu dhawaysaa, ilaahay bay kugu dhawaysaa. nebiyadii ilaahay baa ilaahay ugu yaqaanay, nebiyadii ilaahay baa ugu cilmi badnaa, nebiyada ilaahayna waxa ku sixigaa aimadii. ambiyada ilaahay ayagaa ugu yaqaano, ayagaa ugu yimaan badnaa. laba cali iskuma haysato. aimadii diintan islaamka maxaan ku leedahay qortay ee fahantay ee u dhawaatayna iyagoo ilaahay bay ku xidhnaayeenoo martabad saray lahay. macrifadu ilaahay bay kuu dhawaysaa. sidaa darteed baa ama cumar ibn khataab baa loo tiiriya hadalka soo socda, ama cali baa loo tiiriyaa. culimadu ma takhriijinin oo inuu dacfi ku jiro waa suuragal, laakiin macnuhu waa iska saxiix. low kushifa lii alkhitaau masdadtu yaqiinan. cumar bay culimada qaar u tiiriya, qaarkoodna cali ba u tiiriya radi allahu canhuma, laakiin lama takhriijin. ahar weyaan lama takhriijinino inuu iska daciifiyo waa suuragal, laakiin macnaha u xambaarsanyay waa macna iska saxa. waxay yidhahdaan low kushifa lii alkhitaau masdadtu yaqiinan. daaha iga saaran haddii laga qaadi lahaa yaqiin ima birteen. macnaha daaha qeybka iga saaran, jannada iyo naarta wixii aan rumeeyey hadda iga maqan, haddii la ii faydo dee faydidaa la ii faydo yaqiin ima birteen. waayo marka horeba waan ogaa macrifo cilmi baan hayo, cilmigaygii baa qalbigu ku degay, si toosaan u aqaanay. yaqiin si go-an baan u yaqiinsaday. markaa shaaca haddii la iga qaado yaqiinta intaa igama beeraysa. macnaha marka hore wax igu filan baan haysto, ilaahayna waa ku qancay, qeybkana waa ku qancay. low kushifa lii alkhitaau masdadtu yaqiinan yaqiini ma beerteen. arrinka shanaad ee ku gabagabeynaya hadalkayga waa maxay? alwuquufu bayna yaday illaahi caza wajalla liyowmi alxisaab. ilaahayna hortagayno maalinka xisaabta oo ilaahayna xisaabinayo markaan cibaadaysanayno waa daruuri, waa laga maarmaan. waalahay waa wada dhimanaynaa, ilaahay baan u tegaynaa, ilahayna waxaan ugu tegaynaa waa xisaab. qofka sida adduunka wixii u qabtay baa la weydiinaya. keliyaana waa tahay waxaagi baa lagu siinaya, waxna lagagu dari maayo, waxna lagaa rami maayo. cadaalad rabbaani ilaahay baad hor joogtahayo waxaadi oo dhan baa farta lagaa saaraya.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين بالله جل وعلا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ميزانك عدالة قيامها بقينا بالله جل وعلا فلا تظلم نفس شيئا. نفر وحلا نضع ولا نبوض وإن كان مثقال حبة من خردل جيدك خردل إلى علماء waxay ku sheegaan marka laga hadlayo geedka ugu murayyar geedka khardal la yiraahdo murihiisa xabad kamida midkiin haduu shaqaystay laga baway maayo warshada وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها بالله حبة خردل كما احنا يدوش شقاystay وكارنا وكفى بنا حاسبين بالله العيد وحساب سنة أنا كفر بالله أما مالك إلهي ما قلت لنا ولا حسابنا وكليا عند كان واحد تريميسو مالك كان حسوسنا مركا تكرينو أما قرآن آخرينو أما نفطوا يدم عليه يدبابتو أما نفطوا يدم عليه فرحنا كوكعلو نفطوا كوكعلو عنكوها قولي ديتا عنكو فعلي مالك حسوسو وصورتها ونذرنني ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وحير أو خير وظهري وحير وشر وظهري مالك هذا نبوار برمية عد كلمة تكتو قفك السوح جعلي مالك يدم دقيسة وحلقة قاضة وإن تدعى مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى بالله جل وعلا وإن تدعو مثقلة إلى حملها نفدم دقيقة وعليسية هذا دواغوتي هذا واركالي حاجتيسي وانين حاسكيسي ويا كان يدم دقيقة وحين قلبكم أما وقرب لي كذي ويا لو حبيت لك هذا دقيقة وحين قلب وإن تدعو مثقلة إلى حملها نفدم دقيقة وعليسية هذا دواغو إن دم دقيقة وحلقة حنبارو لا يحمل منه شيء إلهي دم دقيقة وحبلك حنبار ماي ولو كان ذا قربى عدا ويارسي قرابة نقطة قرابة عندي كوبود وين بها نقطة عدا باقيسو إلى يوم ولا تزر وازرة وزر أخرى نف لعليسية العليس كيدي نف على محبة سيد الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى من دبابتي نفك ودبابتي دبيقين محبة الله جل وعلا marka hadda ni walba wixii taqaf walba wixii tahay ku filan likulli imri'in minhum yawmaydin sha'nu yughnihi wa qur'anki likulli imri'in minhum yawmaydin sha'nu yughnihi qof kasoo nabi aadan kamida maalinka ilaahay in ku filan buu wataa jita wa waduna qof walba in ku filan bushtaaya ka badan markay naftada rabto inay turooto ama meel ay ka dhacdo oo jabto dabaato maalinka kan إلى مالك النوع عاصى خالق أبو نوتيسو صلاة مركاتوكريسو موقف كاو شيخ نفتاضو وحن كرت نفتاض سنتوي عنانته إلى الدين سكوتاكتو والله تعالى على وأعلم وإليه المرجع والمآب صلى الله وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.